السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليga ay ku xiran janaalkayga Ayush Bintu Rashiid iyo dhammaan kuwa hadartaan nagu soo biiray waxaan idin leeyahay soo dhawaada oo walaashin Ayush oo idin la mar kaleba gacmo furan ku soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ay igu xiran iyo kuwa aan igu xiran intaba maanta waxaan idin wadaa talo muhiim idin ah idinka talada waa talo noocee ah taladani waa talo jacayl inta aanan bilaabin ka hor waxaan ka codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay ee tahay markii kuugu horeysay ee aad janaalkayga soo booqato waxaan ka codsanayaa in aad calaamad subscribe-ka noo taabato kadibna gambaleelka furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee wax waliba aan soo gelino arka marka xigta maanta waxaan idin wadaa talooyin jacayl waxaan idin leeyahay talooyinka jaceylka qodobadan ka barta qodobka koowaad wuxuu yahay ama talada aan idin siinayo ma haboono in ninka aad jeclaato ama naagta aad jeclaato u ilowdo naftaada haweenka ama ragga ayaa mararka qaar ilooba naftooda marka uu jacayl ku dhaco kaliya waxa ay ka fikiraan ninka ama naagta ay jeclaadeen si ay u farxad gelin lahaayeen sidaa darteed naftaada ha u iloobin jacayl talada labaad aan ku siinayo ayaa waxay tahay waxaa laga yaabaa in jacaylku uu hal dhinac yahay mararka qaar waxaa dhacda in haweeneyda ay jeclaato ninkana uu jecel yahay naag kale sida nafteedu naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaa ama uusan u haynin iyada dareenkay u qabto mid la mid ah haddaba waxaa kula gudboon in aad iska xajiso jaceylkiisa ama jaceylkaada wiilow ka hor inta aadan adiga ku hormarin gudbinta xiriirkaasi talada saddexaad ee aan idin siinayo waxay tahay jaceylka mar waliba caqli ma laha mararka qaar ma aha mid caqli leh waxa uu haweeneyda ama ninka ku jiidayaa in ay sameyso ama uu sameeyo dabaalnimo weyn oo ay haboon tahay in laga fogaado wacdaraha waxa weeye waxa ay ku leedahay waxaa muhiim ah in gabar yahay ama wiil yahow aad ogaatid in jaceylka caqli lahayn oo ku geyn karo meel aadan dooneynin talada afraad ee aan idin siinayo waxay tahay jaceylka ma aha sida aad mar waliba filanayso waa arrin iska dabiici ah haweeneyda ama ninka baadigoobo jaceylka qiyaaliga ah kaasi oo riyo ah ogow jaceylka mar waliba ma aha sida aad ka filanayso dhageystayaasha ku xiran janaalkayga sharafta leh waxaan idinka codsanayaa mar waliba waxaan doonayaa inaan mar waliba idin soo bandhigo talooyin sidan oo kale ah anigoo u dhaga nuglaanaya dalabkiina wixii fariin ah ama talo ah ama aad doonayso in aan kaa caawiyo walaal waan kaa caawi doonaa please commentiga hoos inoogu qor haddii ay tahay janaalka markii kuugu horeysay taabo calaamad gaduudka ee subscribe-ka kadibna gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo haddii uu ku cajab geliyo muuqaalkan ama aad wax ka faa'iiday fadlan like saar wixii aad istiri waxaas ayaa qaldan aniga waxaan nahay aadane waxaad igu soo qortaa commentiga hoose wixii aad iga doonayso inaan janaalkan kuu soo geliyana waxaad igu soo qortaa commentiga hoose wixii talo iyo tusaale ah intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa talooyinkayga intaas in ka badanna waa idin soo bandhigi doonaa insha Allah biidnillaahi alkariim sidaas iyo nabadgelyo Obi waa bartaan ku soo korayo Obi laygu soo barbaadiyay Allow belayada hareer mariyay